haddaad tahay macallin tababare arday ama cilmi baare muuqaalkani waa muuqaalkaagii waxaan uga hadlaynaa sidee slideshare wax looga soo degsadaa. Slideshare waa hab online ah oo ay iska leedahay LinkedIn oo ah shirkadda ugu weyn marka la eego habka isku xirka shirkadaha ganacsiga iyo malaayiin shaqo raadis ah oo caalamka daafihiisa ku kala nool. haddaba slideshare waa mareeg kaa caawi doonta haddii aad tahay macallin tababare ama arday raba inuu wax soo jeediyo inaad si fudud ku soo degsan kartid qoraallo kala duwan sida PowerPoint oo aad loogu isticmaalo wax soo jeedinta maqaal ama cilmi baaris PDF ah inaad slideshare kala soo degto, taas oo kaa soo yareyn doonta waqti badan oo aad ku bixin lahayd diyaarinta qoraalladaas kala duwan. keliya intaas ma ahan, adiga xataa qoraallo nuucoodu yahay PDF ama PPT oo maado ama cilmi baaris aad qortay la xiriira waad soo gelin kartaa si dadka kale ay u helaan macluumaadkaas. markaan aan gudaha u galno programkeena marka ugu horeyso soo kacayso browser oo meesha wax lagu qori lahayd halka waxa laga raadiyay mow slideshare.net ku qor, kadib waxaa kusoo kici doona website-ka la dhahayo slideshare.net oo aan rabno website-ka maanta aan ka hadalno oo ciwaankeena u soo hadalnay bilowgii horeba. haddaba halkaa markaad joogtid waxaa muhiim ah inaad account ka samaysid slideshare.net ama linked aad kasoo samaysid si slideshare-ka aad soo gashid. sidaa darteed waa inaad Gmail iyo Hotmail midkood aad leedahay. sign up waa inaad dhahdaa halkan, kadibna wuxuu nagii doonaa markaan sign up dhahno join LinkedIn oo shirkadda iskale slideshare. isaga markaa ku dhufato wuxuu nageenaa meel email iyo la gelinayo, ku dhufa isaga email. halkaa waxaa geli doonaa emailkaaga geli doontaa, emailkaaga ma Hotmail ha noqdo ama Gmail ha noqdo. halka hoosena waxaa geli doontaa password. ugu horeysa aniga haddaan passwordkii aan geliyo Gmailkayga haddaan geliyo ama emailkayga haddaan geliyo hcafi140.com, halkan hoosena passwordka waa isku diri kartaa, xarfo iyo number isla socdo waa ka dhigi kartaa. taas waxaa waaye security-ga inuu adiga haddii aad ka cabsi qabtid in computerkaaga haddii qof isticmaala dhunto kaloo wax ka sawiro kala dhunto inaad kusoo meesha ugu hooseyso waxaad dhihi doontaa agree and join. meesha waa halka username-ka oo kasoo muuqalaya kor inaad halkan ka gelisid xasan kaafi maxamed oo kale aniga geliyay. hadhowta markaan soo galay slideshare qaybta oo userka isticmaalayo oo kale magacaas kusoo qormi doona. marka magacaas oo kale magac gaaban aad ka dhigi kartaa haddii rabto magacaaga dhammaystiran. halkaani wuxuu ku xaqiijin doonaa markaad soo gashid wuxuu ka xaqiijin doonaa inaad robot tahay iyo inaad tahay qof bini aadan. si laftigeeda magaca kore markaad fiirsatid kuwa hoose jack saare kadibna verify aad leedahay. wuxuu noo gudbi doonaa qaybta ku xigta oo ah inuu sii weydiiyo waddanka aad joogtid iyo bostor koorkiisa. halkan waxaad ka soo doontaa marka Soomaaliya hoosta waxaad geli doontaa 252 oo waddanka hadba aad joogtid. haddaa waddan kale joogtid dee Soomaaliya ma joogtid markaas waxaad geli doontaa meesha aad joogtid. halkan waxaad ka dooran doontaa kambaniga aad ka shaqaysid ciwaanka ama title-kaaga. ana hadda waxaan jeclahay inaan noqdo business and taxliiliye xagga ganacsatada markaan kambaniga aan ka shaqeeyo janalka hadda iskale waaye tab. meesha hoosena waxaad ka dooranaysaa qayb aad kasii shaqaysid kambaniga aad ka shaqaysid oo kale. hadda waan iska dooran karnaa business supplies and equipment oo kale tusaale ahaan inaan qaadano kadibna continue dhe. wuxuu noo gudbi doonaa wixii intaan ka dambeeya inuu ku xaqiijiyo ah inuu kuu soo diro code oo xaqiijin ah. waa kaas leedahay confirm your email leeyahay. kadib waa inaa emailkaaga aadaa marka emailka leedahay hadduu Gmail yahay iyo hadduu Hotmail yahay. hadda Gmailkan aadaynaa emailka aad soo gelisay haddaad gelinaysa laftirkiisana waa inaada Gmailka ama Hotmailka aad aadaysid. halka haddaa ujeedid wuxuu noo soo diray email oo ay ku qoran tahay code verification oo xaqiijin inaad adiga leedahay account-kaana. laba waa ku furan tahay inaad kan koobiyeysid oo kaas aad ku shubtid iyo inaad iska dhaaftid oo qaybta hoose oo isla Gmail-kaaga meesha hoose ku qoran agree and confirm kaas aad kala ku siisid. taasaana fiican, kaa kale way iska xiraysaa marka. okay hadda wuxuu noo keeni doonaa meel inuu kusii xaqiijiyo weli oo halkan waxaad dhihi doontaa marka inaan dhahno continue. kadibna isla Gmail-kii hadda aan gelinay ayuu markale wuxuu leeyahay dooro u dhihi doonaa si oo LinkedIn-ka laftirkiisa uu Gmail-kaaga usoo access gareeyo oo u ogaado inuu sax yahay kale. meeshaan hoose waxaa ka dooran doonaa waa kana hadda Gmail-ka aan soo gelinay xasan kaafi maxamed. isaga la dooro adiga Gmail-kaaga ama Hotmail-kaaga markasta meeshan adiga kuu noqon doona bedelka aniga uu yahay
qaybta hoose imo LinkedIn markaan Google wuxuu ku leedahay muu ogolaynaa in LinkedIn ay gasho Gmail-kaaga ama Hotmail-kaaga inay gasho oo loo leedahay kadib wuxuu noo keeni doonaa haddii dadka LinkedIn aan saaxiib ah kula tahay ama hadda aragtid inaad kula noqotid dadka ku jira ayuu noo keenaa iska leenahay uma baahnin ilaa hawsheen hore aragna inaan hore usii galno qaybtaan markaa timaada marka qaybtaan waa qaybtaan u socono qaybaha hore waa email iyo xaqiijintiisa iyo waxaas waxyaaba la xiriira waay laakiin qaybtaan wuxuu ku tutusaayo dhan waa qaybaha qofka hadhowta oo xogtiisa buuxda ku qoran lahay si loogu raadiyo duu shaqadooya laakiin aniga hadda waa kaasaa userka hadda aan isticmaalayo oo kale oo data aan soo qoraynay hoos daa ujeedaan Cabdikaafi Maxamed meesha userka waxaan kusoo qornay business analyst and tab oo data aan soo dooranay tab company-ga ka shaqeeyay oo iska lahay janabka waaye okay muhiimadana waxay tahay marka hadda waa inaan muhiimadda aadno ah slide share oo sababta aan email ku soo sameynay verification aan u sameyn halkaan aan imaan ah balaan slide share dooranno si aan slide share ku aadno slide share kaas ku dhufo kadibna waxaad dhihi doontaa wuxuu ku keeni doonaa page-ka koow aan ka bilownay oo ah meesha aan wax ka raadi doono PDF data iyo PowerPoint-ga aan raadinayna halka aan ka raadinayna halka search-ga intaan kor qaybaha ka kooban oo qaybaha data sabab qaybaha kale iska xir si kaligiis kugu soo haro dikala meesha ka badinaya qaybaha ka kooban waa fiirin kartaa laakiin aniga waxaan muhiimsan halka search-ga ah waa aragna wax ka baaro meesha markaad timaado filliga aad rabtaa wax ku raadi kartaa ama qaybta adiga aad tahay ama waxa aad danaynaysid xogta aad raadinaysid hadda aniga information management qoran project ku reeyo qoraayo kale hadda rabo hadda waxaan qori karaa anatomy oo kale hadda rabtid inaad qortid survey oo engineering hadda qortid waxaa qori kartaa database hadda IT tahay aadba qaybta tahay meeshaan waxay ku xiran tahay waxa aad raadinayso hadda aan anatomy iska dhaw aan fiirsho slideska ii soo baxaya iyo waxa ay kala yihiin iyo muuqaal ahaan qaabka uu soo bandhigayo hadda waa ujeedaan anatomy ayaan ku qoray ciwaano kala duwan waa anatomy uu ku soo saaray hadda aan nursing review of anatomy classical occupational therapy oo qayd ku qoran ciwaano kala duwan ku soo saaray project management aan fiirsho laftirkiisa haddii aan ku qoro slides nooca siinaya waa la mid kiyaad dawladda waa kana asay laftirkiisa hadda kii ugu qurxana is leedahay uu soo jiidanaya aad ka dooranaysa hadda slide-ka project management ku qorantaan doorna 122 page ayuu ku koobay aad ugu badan yahay bookdan waa malena kan okay aan raadinay surveying xagga engineering ka tahay asna surveying aan raadino surveying-ka kii mar walba slide-ka ku soo jiito baa ku noqonaya midka koobaad oo raadinaysid hadda total station surveying-ka oo kala daa fiirino u dhufatid soo baxayo iska 20 page laakiin hadaa rabtid xogta ku qoran si ogaatid waa inaan next si dhaadid waa kana adiga gabadhana noo soo baxday marka address kadib waxa si ogaan kartaa waxyaabaha uu ka kooban yahay oo dhan waa si raadin kartaa hadda anatomy data aan ku laabano hal xabaan dejino ogaana qaabka uu shaqeynayo iyo in la save gareyn karo in la dejin karo in haasoo dhan baan ogaano hadda marka ogaano hadda kana haddii oo qaybta koowaad marka slides tira badan inta ku soo baxaan aad ku qanci weysid next year si dhigi kartaa si qaybo kale aad u aadid haddana qaybo kale loo yimid isla qaybaha data qaybo kale oo leeg ayaa ku yimid fiirino hadba kiina qanciya hadda kan anatomy of optic and nerve ay ku qoran tahay ayaa ujeedaa kan color maadaama Soomaalida ay waxyaabaha colorka aad isaga jecel bal si uu dhufo aan fiirino waa kana hadda wuxuu ku kooban 84 page waaye habad maadamo laakiin xogta ku qoran maxay tahay next year leedahay si aad u ogaatid waxyaabaha ku jira in waxyaabo ku anfacaya ama xogta aad rabtay hadda waxa laga yaabaa slide-kan oo kale markaas ay aragtid sawirro iyo qoraal la gaagaaban oo qurxan inuu ku siiyo oo aad tiraahdo degso markaas oo kale download aad ku dhufatid halkaan uu keeno marka halkaan uu keeno waxa rabnaa waa login with LinkedIn kuwan kale waa iska dhaafaya marka aan ku soo sameeyay email-ka aan sameeynay marka qaar user caadi slide share laga abuuro kara jira halka wuxuu kugu soo celiyay isla page-kii ama PowerPoint-kii kugu soo celiyay hadda waxa ogaa doontaa user-ka aad uga jirtid magaca ciwaanka kora kugu qoran oo ah hadda uga jirtid slide share mar walba user-kaas ayaa kugu soo muuqanaya email-kaaga iyo password-ka hore soo gashay ayaa markasta ku soo galaysaa hadda download aan dhahno aragna inuu deganayo inuusan deganaynin iyo kale arjina heer kadib inuu download ka bilaabo waa kaasa soo degtay markuu degto kadib waa kicinayna حوالينا أنت بيج سي واضح أو كفر سيادات اللي نكستاندين وكله هذا واكنا إلى قيمته وسيساتي كرتا عوانه ذوك كوبيا سفيع وفير كرتا وحلا يابا حتى هذا إنه كوين فعله لكن سلامك بي وأنا قاعد كرتا هنا هذا كلها بتتعوان كأبات هذا حلا يابا كان أدو وقرحين هذا
aniga hadda caafimaad meeyey laakiin seefaas inaa iska dhaho waxaa dhigi kartaa meel kamida computerkaaga ama desktop ka dhigo ama local diskiga dhigo ama flash ku shubo ama gmail ku diro keliya ciwaanka waxaa u baxsataa ciwaan yar oo hadhowto haddii lacala maalmo ama bil ka soo wareegto aa xasuusan karto magacayaan gaabinaa anatomy of optic ayaa u bixinay hadda waa safe garaynaynaa keliya hadda desktopka ayuu ku safe garaynayaa desktopka uu ku safe garayo waxaan ogaan doonaa desktopkaan tegaynaa isla magaciyaa kasoo helaysaa oo hadda aan kusoo qornoo gaabnay hadda ujeedaan anatomy of optic sida hadda meesha desktopkaba ka muuqata mid kale ayaan raadino hadda kan waa aragnay inta isaga iska xirno aan baarno bal beeraha aan fiirino beeraha weliba plant breeding qof beeraha ama article ama wax ka qoraayo oo kale waxaa laga yaabaa inay ciwaan raadis hadda ama seminar aragtid inaad qabatid oo macallin aad tahay arday assignment lagu diray kaasoo kale aan ku dhufano content page waaye waa seminar waxaa ka hadlaya root generic research cilmi baaris waaye siga sii fiiri xogta ku qoran intaadan degsan kor waa inay slide kasta ama PowerPoint kasta ama PDF kasta waa inay fiiriso gudihiisa ku jira kadib waxaad leedahay degso download laftirkiisa oo qurxan yahay kii data camal waaye sigaan dejino aan ogaana markaas sigana qaybo ku jirjirayo open day hadda furatid browserkaan waxaan ku furmaa hadda artana PDF caadi oo Adobe Reader ku jiro ku fura kartaa ha ka cabsanin okay waa kana saa ujeedid hadda uu furmay qaybaha kala duwan oo ka koobnaay PowerPoint-ga ayaad si tartiib kaliya inaad meel ku save gareysatid hadba sidii kii data aan soo meelinayo la mid yahay wax gooniyo ugu duunay safaasa leedahay kadib waxaad raadinaysaa oo bis xakee ku save gareeya desktop ama local diskiga oo computerkaaga ama flash kii ku fudud ee ku soo xir kana soo xir waxaan ku laabanaynaa hadda home-kii hadda slide share si wax loo dejiyo aragna si wax loo baaro aragna waa adiga awoodda iyo ciwaanka aad rabtid harjeena intaan ka dambeeyo halkan aan ka fiiri doontaa iska waa ka bixi kartaa hadhow markaa ka baxdid emailkaaga iyo passwordka soo samaysa oo ku gali kartaa waxaan rajaynayaa inaad waxaan ka faa'iiday muuqaalkan la wadaag asxaabtaada oo aad is leedahay way u baahan yihiin channelkana subscribe wixii su'aalahaana xagga faallada noogu reeb